waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si rasmi ah loogu soo afmeeray shaqaaqadii iyo dirirtii dhawaan colaadeed ee ka tagneyd hawdka gobolka Togdheer ee labada beelood ee walaalaha ku dhex martay. Munaasabadda arrintaasi lagu soo afmeerayo ka dhacday Hotel Mansour ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland, salaadiinta guud ee beelaha dhawaan dirirtu ku dhex martay hawdka gobolka Togdheer, marti sharaf kale oo shirkaasi lagu soo casumay. Dhammaantoodna waxay soo dhaweeyeen qodobada laga soo saaray shirkaasi. Labada beelood ee colaaddu ku dhex martay hawdka gobolka Togdheer ayaa dhammaantoodba qaatay qodobada arrintaasi laga soo saaray, waxaanay sheegeen inay sida yihiin ay u fulinayaan. wasiirrada xukuumadda Somaliland ka socday iyo madax dhaqameedka kala duwanaa ee halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba soo dhaweeyey sida ay u qaateen labada beelood ee walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay hawdka gobolka Togdheer arrintaasi siday u qaateen. madaxdii kala duwaneed halkaasi ka hadashana waxaa hadalladoodii ka mid shirka nabadeynta turxaan bixinta beelaha hooyadiisa ciise muuse loo qabtay waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran. qodobka koowaad, labada beelood ee hooyadiisa ciise muuse waxay isla qaateen heshiis nabadgelyo oo labada dhinac lagaga dhaariyey mid 25 xubnood, wadajirka guud ee labada beelood laga dhaariyeyna tahay 50 xubnood. qodobka labaad, labada beelood waxay ka heshiiyeen wixii khasaare nafeed ah ee dhacay kaasoo ah sida loo faahfaahsan. xarafka ba waxaa dhintay 5 ruux oo rag ah, 6 ruux oo rag ahina way dhaawacmeen. 3 ruux waxay ka dhintay beesha Habaryonis, 2 ruuxna waxay ka dhintay beesha Ciise Muuse, 3 waxay ka dhaawacmeen beesha Habaryonis, 3na waxay ka dhaawacmeen beesha Ciise Muuse. 5taas rag ah ee dhintay waxaa laga xukumay midkiiba boqol halaad oo lacag ah, waxaana hashii lagu qiimeeyey $400, taasoo wadajirka guud ee magtaasi noqonayso $200,000, taasoo sida loo kala leeyahay. beesha Habaryonis waxaa mag loogu yeeshay 2 ruux oo rag ah, qiimaha lacagta laga doonayaana waa $80,000. beesha Ciise Muuse waxaa mag loogu yeeshay 3 ruux oo rag ah, qiimaha magta laga doonayaana waa $120,000. aaska 5taas ruux ee dhintay waxaa la bixiyey min $1,500, wadajirka guud ee lacagtaasina waa $7,500, waana la kala qaatay lacagta aas. xarafka ha muddada lagu bixinayo magtaas waa 60 maalmood oo ka bilaabmaysa maanta oo bishu tahay 20 bishii 6aad 2023 kuna ee 18 bishii 8aad 2023 ee sanadkan. xarafka ha wax lacag horumarin nageed oo labada dhinac kala qaatay ma jirto aas mooyaane. xarafka da dhaawacaas 6 ah waxaa la siiyey lacag barigooyo ah, waxaana u qaybiyey guddi gaara oo ka kooban labada beelood. markay bogsadaan xadidooda waxaa loo marayaa shareecada islaamka. xarafka ba wixii khasaare maaliyadeed iyo hub ah ee la kala qabsaday isla dhoweynteeda waxaa loo xil saaray 42 xubnood ee labada beelood u qaabilsan wada hadalka inay ku dhammeeyaan muddo 20 cisho kana bilaabmaysa maanta kuna ee 11 bisha 7aad 2023. qodobka labaad ee ajandaha shirku wuxuu ahaa ka wada hadalka wixii dhibta sababay iyo sidii loo dhoweyn lahaa. haddaba iyagoo suurtagalka shirku ka duulaya qodobkaas labaad ee ajandaha shirku ahaa waxay go'aamiyeen. xarafka ba in qodobkaas labaad ee ajandaha shirka ku jira oo ahaa wixii dhibta sababay in laga wada hadlo laguna dhammaystiro shirweyne labada beelood ee Habaryonis Ciise Muuse ay isugu iman doonaan muddo 60 maalmood kadib oo ku beegan 18 bisha 8aad 2023. xarafka ta shirweynahaas labada beelood yeelan doonaan waxaa soo qabanqaabinaya 14 xubnood oo beelaha ka kooban min 7 xubnood, waxayna soo sheegayaan goobta, tirada iyo wixii howlaha shirku leeyahay. waxaa reeban inta shirweynahaas lagu dhammaystirayo wixii khilaaf ah inaan wax deegaaneen cusub laga samayn karin deegaankaas khilaafku ka taagan yahay, sida barkado, bariyo, bino kale oo la dhiso, wax muuqaal barakacayaal leh oo meel ku urura baca dhulka lagu aaso deegaaneen ah
oo iyo wixii dabeecad deegaan cusub leedahay qodobka afraad inta shirkaa dhammaystirkiisa la gaarayo nabadgelyada ilaalinta deegaanka isdhexgalka iyo walaalaynta bulshada waxaa ka mas-uula xukuumadda iyo 42 xubnood ee beelaha haweeneyda si ciise muuse u qaabilsan wadahadalka ciddii jabisana waxaa lagu ganaaxayaa lacag dhan $20,000 oo kaash ah oo ku walaalowno oo ku milowno taasaan u diyaarnahay waxaanu u diyaarnahay walaalnimadiina waxaan u diyaarnahay wada noolaashihiina waxaan u dhiibay arrinka shirgudoonka markaa shirgudoonku wuxuu soo saaray dee waajib bay ugu tahay mar haddaan hore u qaatay oo u aqbalay oo aan siiyey kalsooni inaan qaataa waa sharci waxaanu soo dhawaynaynaa go'aankaa guddidu ay soo saartay marka hore waa soo dhawaynaynaa laga bilaabo geeraayaa cayeer marba dhinac u cararaya halkuuda wax ka daaqayaa lagu sii daynaya iska waanin mooyaane nabad baanu haynaa nabad walaalnimaanu haynaa walaalayaal aad iyo aad waxaan jeclay walaalnimadeena nabadnimadeenna allaha awoodda lama u sugnaatay waxa kaloo mahadnaqa ilaahay ka sokeeya oo aanu u mahadnaqaynaa dhammaanba cid kasta oo gacan naga siisay sidii ay u islaaxi lahayd ay nabaddaasi u guntami lahayd ee arrinkaasi u dhammaan lahaa xaajada nabadaynta beesha habar yoonis iyo beesha ciise muuse waxaan u celinaynaa haddaanu nahay shirgudoonka labada dhinac ee hawsha maxay ahayd sida gaarka annagoo egman oo dee salaadiintii guud iyo salaadiintii ah oo iyagu mar walba maxaydaanu egmannahay haddana sida gaarka wixii arrinkii aanu soo gorfaynay waxay tala nala noqotay qaatay sida quruxda badan lagu soo dhoweeyey ee qalbiga iyo maamuuska waa sare ka muuqda aad baanu idinka mahad celinaynaa labada beelood iyo labada ergo hadal waa la yidhaahdaa go'aamana waa la soo saaraa si fudud laakiin fulinteeda ayaa laynaga rabaa qalbigana aan u sii dayno in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa war wallaahi haddaanay dar ilaahay ahayn haddii golokakaka noqoto haddii meesha la isku dhaafinayo ma soconayso walaalayaal ninka idin xumaynaya ee colaadda idin abaabulaya waa isgaranaysaan iska soo qabta nabadda waxaa lagu daraa ereyada dhiifta le inaan la isu isticmaalin horta ereyada dhiifta le waa kuwa khatarsane ka ilaaliya ilmaayarayaal waanan idinku ducaynaynaa waxaan leenahay nabad wax dhaantaa ma jirto maanta nabad unbaa wax noolaysaa ama ehela ama gacaliba way ka naxday cid waloo nacabiba way ku faraxday halkaa iyada haddaynu maanta ku soo gebagabaynay nacabkiina inaynu ka naxinnay nasteexiina ka farxinnay falxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ka qaadatay si toos iyo si dadbanbaba sugidda nabadda iyo afjarkeeda waxaan kaloo doonayaa inaan xuso oo halkan ku bogaadiyo odayaasha labada dhinac oo soo dhoweeyey go'aankii shirgudoonka anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda maanta halkan aan joogno waxaan idinkula talinaynaa oo idinku adkaynaynaa oo idinka codsanaynaa sidii gobonnimada lahayd ee golaha imika uga qaadateen inuu go'aankaasi aa qaadataan inaad go'aankaa daadejisaan inaad go'aankaas golayaasha deegaanada magaalooyinka miyiga meel walba la gaadho waxaan idinkula ballamaynaa oo haddadan aynu doonaynaa inaynu halkan ka iclaaminno maanta oo shirkan la go'aamiyey berritan subaxdii laga bilaabo arrintii baashana sheegayay ee geeliina ha la soo dacayo in geel iyo dad iyo duunyo layswada dhex galo geesta kale labada beelood ee walaalaha iyo dhammaantoodba waxay soo dhoweeyeen go'aamada laga soo saaray shirkaasi waxaanay u ballameen
shir dambe oo ay isugu iman doonaan labada beelood ee walaalaha oo ay isku turxaan saarayaan. Waa Siciid Cali Cismaan Xaalays, telefishinka caalamiga ee Gobonimo, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.